gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Somaliland Muuse Xasan Xaaji Yuusuf ay weheliyaan wasiirka wasaaradda ganacsiga, dalxiiska iyo warshadaha Somaliland Maxamuud Xasan Sacad Saajin iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Dr. Cismaan Xuseen Warsame ayaa shir jiraayad si wada jira ugu qabteen gelinkii dambe ee galabta xarunta hay'adda dhowrista tayada Somaliland ee magaalada Hargeysa. Waxay ku shaaciyeen ganaaxa laga qaadi doono shirkadii keentay dalka shidaalkii xumaa ee aafeeyay baabuurta ay wataan qaar ka mid ah shacbiga Somaliland. Muuse Xasan Xaaji Yuusuf gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Somaliland oo ugu horreynba goobta ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay qadarka ganaaxaas iyo weli waxyaabaha ka soo baxay baaritaan ay sameeyeen guddi si wada jira ay wasaaradda ganacsiga iyo hay'adda dhowrista tayada u saartay soo baadhida shidaalkii xumaa ee dalka la keenay. Maxamuud Xasan Sacad Saajin wasiirka wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska Somaliland oo goobta ka hadlay ayaa yiri وكذلك إن أردت سيدودها قولها وسيردون ويسكر راعي أردت أنا وشرعي موتاي جناحه سوى شرعي